السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا وضع صلابة يا دبانتي بميلة جوكتاني وقتها أكو جرتان بقى المضى رئيس سومال الآن إذا عضى يني بتكريدا يوراقي يوضع شركة يوحوض الله شاه دون شيئان دون إن دور كوت شيدين إننا هنصورين وهنسوي سوق لمانتا إنتي خلان سلام شرين دي كتاب كوكو جرتاني وهنسوق لا لا إن سلف لا يراها أو خضر حكاياها حسبي وطني وكبيس دايان حاركي سجارين عاية إلا دقني واتهاد دقن هو نوع عصوم يلن الدنيا دي إلهنا وحا قدرا مد دابا laga shaqaynayo soco lagu soo dirayo oo reerkiisii loo soo adeegsaday wax allaala wuxuu yahay intaasna wax allaala wuxuu ku doonayaa aanay jirin xil ku doona qofku haddaanu dhiigi lahayn oo damqanayn wax allaala wuxuu yahay aanay jirin waa noocan oo kale ya waa noocan oo kale ya bal had wuxuu yidhi doqori 12 indhood bay leedoo mid qodaxda isaga eegtaa buu yidhi Ibraahim Gadle 11 nin xigay ku eegtaa ina salafow bal waxa aad ku haysato khabar dii dowladda ma jirto askarigii hore madaxweynihii wax sheegan jiraan ugu leeyay madaxweyne ma ogane ee dabada kaa soo wadaa meelaha ku geey ma jirto xukuumad iyo wax kala joogta caruuraha xidhxidha bal kullu jeel ka buuxiyo horaan u iri waalinta la waxbu sii daaya askargan ragga madaga ka hadhay jeelkii uu banaynaya malaa waddan buu banaynaya wada xidhxidh maca madax dhaqameedada waan hore u iri tii baana dhacday cid kale looma banaynin waxaan ku leeyahay salafow waad edab darantay edab samee xogayaha xusbiga wadani khadar wallahi inaad weligii gaadhin xaarkiisa inaad gaadhayn meel la isla soo taagi karin ee dee inta afka ku jaqda baa tahay waxaa la yidhi raggu waa talakeen iyo tala raac rayikeen ama rife khadar waa ragga talakeenka ah adna ka rifa ah baa tahay ee weliba cid kale looma diree tulkii loo soo diro maantastahay haddaad dhig iyo us leedahay ood inuu damqanaso dambir kugu jiro waxaa maad samayseen miyaad aragtaa askariga reerkiisa mid u jawaabaya waa maya kuwa la adeegsadaa waa adig iyo noocaaga laakiin waxaan kaga ciilahay buu yiri ya mawaaflaha qarinayay calina may baana ciilowba buu yiri maanta haddii walba calima ii baana buu yiri ya ciilowba maanta haddii aad khadar damacdo inaad u jawaabto dee noocaagaasoo midhan weeye xil u go-ay baad ku ninkaa dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa iyo ummaddiisa iyo reerkiisaba u daacadda ah ee somalilan oo dhan u daacadda ah ee meelaha aan kala saarin ee xogayaha ah baa lagugu soo saari karay sidii awrkii ku dhow loodhan jiray jenig hoostiisa laga gelin jiray dhangada loodhan jiray ku dhow kiibaad aayamalihid waxaan intaa u dhaafayaa bakti dhigo weyn oo intuu meel isi soo taagay shalato ilan qofka haddaanu dameer lahayn waa kan oo kale ya welibaad ku faanaya carruur baan ka soo saaray talaagad wuxuu ihi xaajadu hadday daacad tahay oon lagu dambaabaynin dambaabidhada naareed haddaan dhinacu doonaynin dib u joogso oon kula dacwii doodna waan odhanay ya hadday xaajadu daacad tahay oon lagu dambaabaynin dambaabidhada naareed haddaan dhinacu doonaynin dib u joogso waan kula dacwii doodna waan odhanay nin reerkiisa loo adeegsadaa waa kan oo kale carruurta aad leedahay talaagad baan ka soo saaray inaad ka muraaqabto aaba ahay
uu dhiiggu kugu karo ee dee dhiig baanad lahayn damiirna ma lihido hungur baad u dhimatay yaa dilay kaad hoos fadhidaabaa dilay yaa tallaagada ku ridee qariyey kaad hoos fadhidaabaa qariyey kaad hoos fadhido baa qariyey markaasaad weliba faan ka dhiganaysaa waa wixii habluhu dabada kaaga laadayeen habluhu akhas caleyk noocaagaasoo kale ilaahay soomaba hadeeye ilaahay ku soo hadeeye ku odhan maaye waayo noocaagaasoo kale ilaahayba sooma hadeeye ya reerka un ku taagan weliba isla soo taagay carruur ban ilaah baan idku dhaarshay ummad yahay dhegeysta wuxuu meel isla soo taagay carruur baan talaagad ka soo saaray waan xalaalo yaa laayay 60 baa ku xidhan burcee waayo markii habar jeclo iyo garxajiska aad isku diri jirtay adig iyo geeya shaaximan iyo xinif iyo isku diri jirteen ay soo xidhantay tog dheer adiguu boodbooday ee meel kale meel ay qabsato markaad weydayd kolba 4 wadan lacagta soo siin jiray $20 diri jiray ka daba hadla qolada hadashay wadane iyo garxajiska inta tii soo dhaaftay tiina markay kuu shaqayn weyday baad maanta isla soo taagta meel carruur baan talaagad ka soo saaray la dilay yaa dilay miyaana dadkaagii ahayn miyaana reerkaagii ahayn miyaana kuwaagoo kale ahayn aqoontaad ku hadlaysaa ayaad wax dadka ugu sheegaysaa ilan kaad ogeydun weeyaano kama soo reeyo waxaa tahay la beray wax allaala waxaa tahay la beray waayo waxbaba ma tihid maalin dhaysana waxaad lahayd 26 markay dhamaadaan baynu eegi doonaa ururay noqonayaan kaale oo dee ka dhig adigu urur caynkaasuu kuu soo sheegay askariga iyo xisbiyadu meel bay wada marayaan ama ururay wada noqonaya asna uu ka tegayo dee waa kaa kursigaba ka tegey madaxweyne dambuu yahayna ma jirto cidaad kaad hoos fadhidaana nin inglis sidaa kuma damqadeen taariikhdaaduna waa buuxdaa way kaa dhamaatay awalba dee waxba maad ahayne kuwaad ku diganayso aad leedahay carruur baan ka soo saaray talaagad waa kuwaagii waa dadkaagii waa tolkaa dee waxaa la yidhi nin baa wuxuu yidhi naasjiid iyo lugjiid midna iima galo markhaati inta markhaati loo qabsaday raggu yidhi naasjiid iyo lugjiid midna iima galo haddii naaskii aad siiday iyo biyihii aabbahaa lug aad siiday kaala weynaatay adiga iyo nasiibka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu